haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. Sheekadan waxay ku dhacday gabar magaceeda la yiraahdo Ruwayda. Ruwayda waxay la nooleed familkeeda waxayna dhigatay jaamacad. Ruwayda maalinka arrinkan uu ku dhacay aabaheed iyo hooyadeed waxay aadeen tacsi. Gurigana waxaa looga tagay Ruwayda kaligeed. Ruwayda markii ay jaamacadeeda soo dhameystay waxay imaaday guriga. xilliga ay guriga imaanaysa Ruwayda waxay ahayd 5 saac habeenimo. kadib hore waxay u soo qaadatay cashadeeda iyo wixii cuni lahayd. laakiin Ruwayda waxay hilmaamtay albaabka banaanka in ay soo xirto. Ruwayda iyadoo qolkeeda ku jirta ayay waxay aragtay nalka daashka oo daaran. Ruwaydana waxay ogeed hooyadeed iyo aabaheed inay caawa soo hooyaneen. kadibna waxay maqashay shanqar sida qof qufaacay oo kale. isla markii Ruwayda albaabka ayay soo xiratay nalka qolkeeda ayayna daaratay. miiska hoostiisana way gashay waxayna wacday booliiska. waxayna u sheegtay in gurigeeda qof tuug ah ku jiro ayna ugu shakisan tahay in uu dilo. Ruwayda booliiskii waxay u sheegeen in gurmud degdeg ah muddo dhow loogu soo diri doono intaasna ay kasii dhuumato tuuga. gurigeeda ayay ku dhuumaneysay Ruwayda. kadib albaabkii ayaa la soo gargaraacay. Ruwayda albaabka qolkeeda ayaa la soo gargaraacay. kadibna aad ayay u cabsatay. qofkaasina wuxuu isku dayay in uu albaabka iska soo furo. nasiib wanaag albaabka sikatuura ayay ku xiratay Ruwayda. albaabkana ninka ma soo furi karin. ninkii markii uu arkay in uu albaabkana furmaynin oo sikatuura ku xiran tahay albaabkii ayuu gargaraacay. wuxuuna Ruwayda ku dhahay booliis ayaa banaanka taagan ee fur albaabka. Ruwayda isla markii way dareentay in uu booliis ahaan sababtoo ah booliiska qayladooda ma maqlin ama gawaarida qaylada booliiska. kadib Ruwayda cabsidii ayaa ku laba jibaarmatay. waxaana maqashay ambalaaska booliiska banaanka ay daaqada ayayna soo istaagtay si qof waalan oo kalena way u qaylisay. kadib askartii ayaa si degdeg ah guriga ku soo galay. meel kastana way ka baareen waxayna raadiyeen ninka ay Ruwayda sheegayso. Ruwayda wax kastoo meesha ka dhacay waxay u sheegtay booliiska iyo sida uu qofkan iskaga dhigay booliiska oo kale. nasiib xumo gurigii waa laga waayay qof. kadib Ruwayda waa laga soo waday gurigii iyagoo banaanka loo wada ayaa shanqar waxaa laga maqlay jikada dhexdeeda. markii la galnay tuugii wuxuu ku dhuumanayay qasaalada dhexdeeda. Ruwayda isla markii arrinkii waxay la socodsiisay aabaheed. wax kastoo ku dhacayna aabaheed ayay u sheegtay. si degdeg ah ayuu ka imaaday guriga Ruwayda aabaheed. kadib Ruwayda aabaheed wuxuu aaday saldhigga booliiska. halaas wixii ka dambeeyay Ruwayda waxba kama ogeyn. waalidkeed ayaana sii dabagalay arrinkii. fadlan ha hilmaamin in aad albaabka soo xirato. channelkana subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. videogana like saar.